maanta ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu daafuray xisbiga awoodda shacabka kaasi oo hogaamiyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. daafurkan oo u dhacay si casri ah ayaa waxaa albaabada u furay hogaamiyaha xisbiga. ku soo dhawaada xarunta xisbiga awoodda shacabka. maanta laga bilaabo way noo furan tahay xarunta xisbiga awoodda shacabka. aad iyo aad u mahadsantihiin, way noo furan tahay. ku soo dhawaada. daafurkan kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay hogaamiyaha xisbiga Taabid Cabdi Maxamed. waxa uuna ka hadlay ahdaafta iyo qorshayaasha u degsan ee xisbigu doonayo inuu gaaro. xisbiga awoodda shacabka himilooyinka uu hiibsanay haddii aan si kooban u sharxo waxaa ka mid ah: 1. ilaalinta jiritaanka iyo madaxbannaanida qaranka Soomaaliyeed. 2. nabad iyo xasilooni ku soo dabaalidda dalkeena iyada oo loo marayo siyaasad ku dhisan wada shaqayn qaran, gobol iyo caalamka. 3. horseedid dalkeena bulsho, siyaasad iyo dhaqaale furan oo saldhig u yahay dulqaad, nabad wada noolaashiyo iyo wax wada qabsi qaran iyo mid caalamka. 4. unkid dowlad wanaag ku dhisan hay'ado madax bannaan, daah furan yoolna u yahay sarreynta sharciga. 5. dhisidda hannaan adeeg bulsho oo muwaadiniinta ka haqabtirta baahida aasaasiga ah. 6. xoojinta iyo sare u qaadida doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda iyo horumarka bulshada. 7. hirgelinta siyaasad lagu horumarinayo fursadda waxbarasho, xirfadda, shaqo abuurka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee duldaxaadka u ah aayaha qarankeena. intaa kadib, xisbiga awoodda shacabka himiladiisa waa hirgelinta aragtida cusub si aan wax uga bedelno wacyiga iyo waaqiciga qarankeena maanta ku sugan yahay. bog cusubna ugu furna jiilka soo koraya si ay uga mid noqdaan loolanka asaagooda caalamka una horumariyaan dalkooda hooyo. intaa kadib, waxaa su'aalo badan ay ka taagan tahay marka la gaaro xilliga kala guurka ee siyaasadda. taana waa wax iska caadiya ama dabiiciya in bulsho ay soo wajahdo xaalad walwal ah xilliga kala guurka siyaasadda, gaar ahaan marka aysan hay-adaha dowladda si daahfuran kalsooni loogu qabin. hase yeeshee waa muhiim in bulsho iyo hoggaan aan wada fahansannahay in dowladnimadu tahay ismaamul ku dhisan heshiis bulsho la isla ogol yahay, xeerkana xeendaab u yahay. hirgelinta iyo isgaarsiinta himilooyinkaas waxay u baahan yihiin aragti iyo dadaal aan ku ilaalino kuna barbaarino inta aynu maanta haysanno, isla markaana aan horey uga sii wadi karno socdaalka dheer aynu ugu jirno gaarista halka aan hiigsanayno. haddaba si taa loo hubiyo, waxaa dhammaan hogaamiyaasha heerar kala duwan ee dalka waajib ku ah inay dhowraan heshiiska bulshada isla gaartay, dowladnimadana ku ilaaliyaan xayndaabka sharciga. haddii aan ka hadlo arrimaha hadda taagan ee doorashooyinka, maanta waxaa horumar ah in Soomaaliya ay ka hadlayso sharci doorashooyin, in golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed laga ansixiyay sharci doorashooyin uu sugay aqalka sare, kadibna madaxweynaha uu saxiixo si uu sharci u noqdo. waxaan isxasuusinaynaa dhammaanteen maanta halka aan joogna oo marka ay noqoto inaan ka hadlayno sharci doorashooyin oo uu dalka leeyahay waa runtii horumar wanaagsan. balse sharcigaas doorashooyinka uu dalka leeyahay ee laga soo wada shaqeeyay, xisbiga awoodda shacabka wuxuu ka aaminsan yahay aragti ahaan in ay muhiim tahay inay ku dhacdo doorasho sharciga waafaqsan, shacabku cod yeesho, kuna salaysan nidaamka xisbiyada badan, waqtigeedana ay ku dhacdo sida dastuurka uu qabo. sidoo kale wuxuu xisbiga awoodda shacabka soo jeedinayaa in marnaba wax sharciga ka baxsan aysan doorasho u noqon dadka Soomaaliyeed. Soomaali waxaa deeqda wax sharciga waafaqsan oo dhammaantoodna gaarsiin kara horumarka ay hiigsanayaan. waxaan mar labaad soo jeedinayaa oo xisbiga awoodda shacabka uu soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka magaca xisbiga awoodda shacabka in maamulka doorashada ay noqoto mid daahfuran u suurtagelisa muwaadinka Soomaaliyeed in uu doorto cidda uu doonayo si meesha uu hiigsanayo qarankeenana uu la hiigsanayo uu u gaaro. haddii aan si kooban uga hadlo arrinta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, wuxuu xisbiga awoodda shacabka qabaa in mar waliba lagu saleeyo in ahmiyad weyn ay leedahay wada hadallada ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland. taa waxay sal u tahay, aasaas u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay hiigsanaysaa inay wada gaarto. sidaa darteed
waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa in wada hadallada ahmiyad gaar ah la siiyo dadka ku howlan hawshaasna mar walbana la fahmo in wax walba lagu gaari karo wada hadal oo aan joojoob iyo qasab iyo wax kale waxba lagu gaari karin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan halkan baaq ugu diro oo aan iraado xisbiga awoodda shacabka uma taagna dan gaar ah qof gaar ah xisbi gaar ah deegaan gaar ah xisbiga awoodda shacabka sida magaciisa uu ka turjumayo wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh sidaa darteed taladaada tusaaleyntaada fikirkaaga aragtidaada waxay noo tahay muhiim xisbigan ma ahan xisbi qof gaar ah u shaqeynayo deegaan gaar ah u shaqeynayo dan gaar ah u shaqeynayo waa xisbi asaasidiisa uu yahay mid ummadda u shaqeynayo Cabdi Weli Qorane Goobjoog TV